السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad inaga daawanaysa waa deegaan films and vlogs. fadlan haday ku cusub tahay subscribe sa like share comment. maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay wax kala maahan oo jidin labisanahay waxaan rabaa inaan xalfad ka qayb galo. xalfadaas oo ka socoto tiyaatarka qaranka. xalfadaas waxaa dhiganayo jaamacadda Green Hope ardaydii ka qalin jabinaysay. marka waa ka casuumanahay aniga iyo saaxiibkay Yaxay ka casuumanahay saxaabta صح تياترك كعزومنا مركا أصحابي أسأل الصعنة هذا هو تياترك ودوه هاي وقال الرواء غير أسأل أوجنا هاي يحيي تياترك كدعاية وإذا سوت من دون بركاته مركل وصلنا وني ما أنتوا حنجونا موجودين تياتر كبارك جونا روحان مناسبتي خلينا جبت قبل يا وسيلة إذا مش شيء موجودين تياتر موجودين إياه جامعة جرين هوب حكمتها جامعتها وقت كلهم جعلي هاي حكمتها هاي أرض جعلي مركا موجودين حلفة إذا ما كتب قلنا سأصعد ونكسر ما شاء الله جامعة واحدة اسمها جامعة عندنا سجلات بايات الانجليزي وحنا على صمامات الانجليزي ما في صوت ان شاء الله waxaan gudaha u soo galnay tiyaatarka qaranka oo diin waaba dareemaysan quruxda iyo leeyahay dareemaysan inaad tiyaatarka u soo galnay gudaha halkaana ku koreynaa waadi inta ku aad kandarada والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وزيرة هيئة قرن الدولة الفدرالية دولة الصومالية حينما نضع لبضع أقل قلها برلمان كجمهورية الفدرالية الصومالية مسؤوليتها كالدول النقلين شوكتا وزارتها كالدول وحبرشتها هداية تعليم تسرد قاديدك cirka iyo dhulka madaxda kala duwan ee garsoorka dalkeena Soomaaliya gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalkeena Soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada sharafta badan ee nagala jooga dowladda goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ee dalkeena Soomaaliya madaxda kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir waxaa yahay arday aan ku kalsoonaa berika maalin مسؤوليته وقابلنا قادك إن شاء الله هو قبلنا قادك هدي أرتقاس شهادة عن سيدنا مسؤوليتي عنكو وين وكسر بحوالي انت بلسوا عليه هو إن شاء الله وتلا ينادو
waxaan rabaa marka insha allahu ardada hadda fadhida waxaa jirta dafcada sideed xadiga horreeyey oo tiin dafcadtii sagaalaad waxaan qiyaasay dafcadihii hore dad aad iyo aad mas-uuliyiin u noqday oo hadda aan ku kalsoona meel ay joogaan aqoontii ka run sheegay dadnimo ay ka muuqatay ayay ahaayeen idinkan waxaan filaynaa ina sidaas aad noqon doonto haddii la yidhaahdo sababtoo waxaan ognahay aqoonta ximbaarsantiin insha allah haddii la yidhaahdo waxaan rabaa marka insha allahu inaan dardaaran iyo ballamo aan wada galno maadaama aan ka dhammaan doono insha allahu arday guryaha ka qalin jibiyaho wuxuu ka mid yahay arday jaamacadda ka dhashay kuna soo noqon doon insha allah haddii la yidhaahdo ardada baajka ah ee hadda qalin jibiday waxaan rabaa inuu ballan qaado laba qodob oo kala ah calaa arday ina siiyo laba arday oo scholarship ah midda kale hadduu rabo inuu ka diyaarsado hadduu rabo inuu ka diyaariyo double badge ay jaamacaddu ay sii doonto scholarship ama discount ay u samayn doonto haddii la yidhaahdo taasna cashaan waa ballamahan kelin insha allahu waxay kaloo jiro jaamacaddu bixinaysaa masterka dibadda ee Gismondas iyo masterka gudaha ee Greenhope haddii miisaal aad u baahdo masterna waa ku bannaan tahay inaad kasii wadato halkaada oo discount lagu sameeyo insha allah taala waxaan rabaa marka insha allahu ballanqaadidaas aan ballan qaaday oo ah scholarshipida masterka iyo badgeka inaad calashaan ka faa'iidaysataan haddii la yidhaahdo iyadana ay ka muuqato oo uu maamulaha jaamacadda Greenhope Professor Mustafa Macne Cabdulle uu nala wadaagay hadal jeedintii bilowga munaasabadan bilan maalintana booqran jaamacadda Greenhope sagootinaysa dufcadda sagaalaad iyo tan saddexaad ee masterka iyo badgekaba waan uga mahadnaqaynaa waxaana sii gudagelaynaa xanaano socodka munaasabadda annagoo wada sharfayna dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee munaasabadda soo bilay oo dhexjoogoodu noo yahay guul kasoo qaybgalkooduna noo yahay sharaf waqtigooda qaaliga ahna inoo soo qoray ee isugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiirada kala duwan ee xukuumadda federaalka dalka soomaaliya uu nagala joogo wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalkeena soomaaliya walaalkayaga cabdulqaadir sheekhuna maye iyo wasiirada kale ee dowlad goboleedyada hirshabelle koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin walba iyo mansab walba oo munaasabadan ay ku joogaan oo aan uga mahadnaqayn ayaa markan waxaana jeclahay inaan u sii gudubno xanaano socodka munaasabadda waxbarashadu waa sad waa raxmad waa ogaal waana iftiin u gaara ruux walba oo waxbarta annagoo u wada hambalyeynayna ardayda dufcadda sagaalaad ee baajka iyo tan saddexaad ee master digriga ayaa markan waxaana jeclahay dhinaca shahaadada sarreysa ee master digriga oo aan ugu hambalyeynayo ardayda ka qalin bedelanayda in aan magacooda ku soo dhaweeyo anigoo sharfaya weyneynaya xildhibaankayga dowlad goboleedka hirshabelle ee dalkeena soomaaliya kana mida ardayda ka qalin bedelanayda master digriga ee jaamacadaha Kisamunta International University iyo Greenhope xildhibaan Ahmed Sani soo dhawow si uu magaca ardayda ka qalin bedelanaysa master digriga uu inala wadaago waan saluugayaa sida aan u soo dhaweynayno xildhibaan waan jeclaan lahaa inaan si xayidnimo ah aan u soo dhaweyno soo dhawow xildhibaan master degree masahlana Ahmed welcome هذا قصد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما نضع قولها الشعب فدرالك لبدي سقوله وزير هذا فدرالك مامل قولي هذا وزير رحل دمانه مامل ياشد جامعة جرينهوب هي كسمانيس معلمين تولي قارقة odayaasha dhalinyarada ardayda baada saxaafadda dhammaantiin iyo cid kastoo halkaan fadhiso maqaamkay ku fadhiso waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal iyo marweyn waxaa maanta sharaf weyn noo ah dhammaanteen cid kasta oo maanta qalin bedeladay iyo cid kastoo halkaan kasoo qayb gashay inaan isugu nimid farxaddan quruxda badan
ay noo sameeyeen labada jaamacadood ee Green Hope iyo jaamacadda Kismaris International University taasoo maanta ay noqotay maalintayda oo aan ka qaadanayay master degree-ga ee ah Security Management and Intelligence Study taasoo aan shakhsiyan aan u arkay in baahiyo gaar ah ay u qabaan ama guud ahaan baan u qabno waddanka Soomaaliya mar aan arkay oday la iiga sheekeeyay oo reemi ahaa in badan magaalada u dhow ama tuulooyinka u dhow u safri jiray wiilkiisa wuxuu u dirsan jiray sokorta iyo calanka dhowr mar markuu magaalada ka soo adeegtay wuxuu yiri wiilkiisa warniyo maalin baa adeeg ma doonan karnay orodoo tuulada tagay waxaa noo samaysaa sandaqad yar waxaa noo furtaa dukaan dhowr neef oo geel ahna waa loo gaday deedna wiilkii meeshii dukaankii ka furay tuuladii aad u fahmay kadib wuxuu yiri waxaan aab u safraa magaalada waxaa samaysaa kaale dukaanka si karta odaygii baadiyo ka yimid dukaankii aan looga tagay wiilkiina wuxuu u safray magaalo deedna odaygii habeenada kamid wuxuu qaatay lacag 3,000 shilin ah dukaankiisii ooma ay taalo wuxuu ka soo galay dukaanka marka wiilku ka soo gadaa wuxuu yiri war adeerow ooma dukaankii wata laa maxaa u galaysaa wuxuu yiri meeshaas ku diris boogi ka dhimis malaha macnaheedu wuxuu garanaynin ooma taalo wuxuu u fahmay in meeshaan ay u baahan tahay laakiin lacagtii oo faa'iidada badneedo wuxuu sameeyay banaanka u bixiyay uu dukaanka la ganacsi u abuuray saas darteed waxaan aaminsanahay inuu wax badan oo aan shaqo aan ka qabanno dowladaha federaalka ama heer state ama cid kastoo shaqo gaar ay qabato aynan ku habboonayn wixii ay qabanaysa aysan qabanin ee ay qabato wax kale taas marka waxay sababtay in horumar badan oo la samayn lahaa ay gaab galaan macnaheeda qofkii uu bahayo capacity uu wixii uu ku qabto maxaa yeelay malaha aqoonteeda that is why marka aan maanta aan soo gabagabaystay jaamacadeydii master degree-ga oo aan aad ugu faraxsanahay uguna mahadcelinayo macallimiintii sida waqtiga badan ee noo soo dhiirigelisay sidoo kale mudanayaal isbarawooyin waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida maanta fadhigan aad noogu qurxiseen oo aad waqtiga nooga qaadateen maxaa yeelay waxay noo samaynaysaa dhiirigelin farxad badan in badan oo weli dhexda kusoo jirto waxay ku dhiirigelinaysaa inay heli doonaan maalintooda intaanay inka badan waana rajaynaa wax badan in macnaha waddanka uu wax iska bedeli doono cid kastana departmentiga ay baratayna inay ka soo bixi doonto ubax soo saara dalka iftiinkiisa shida ubax soo saara dalka horumarkiisa kaba jaliga la dagaalantay iftiinkii dalkay jaliga la dagaalantay iftiinkii dalkay oo maamuliyo macallimiin go-aankoodu yahay oo maamuliyo macallimiin go-aankoodu yahay inay manka dhalinyarada aqoon ku shubaan inay manka dhalinyarada aqoon ku shubaan ayaa heegan idinkugu ah bulsho yahay ogow ayaa heegan idinkugu ah bulsho yahay ogow Green Hope halin oo gadaal hamarin Green Hope halin oo gadaal hamarin وما سنتي ما شاء الله هذا حلفده ويسعدها لكن ثانية لحق وصبح حي حافظ الرواية إن سوادو وأنا سوق بجبتها هاي صعبتي عاد الله هاي فضلا أدان هل كان سوق قرتي بليز لايك شير كومنت سبسكرايب نصاح ما تنسوا وحنو سوق بجبوي حلفدي وصودا من سنة وجيت أصحابي حافظين وصعنا wada shaqeyn wacan waxaa idinkaga baahnaa marka wax kale maahan like-ta commentiga shareka iyo subscribe oo haddaad ku cusub tahay youtube-keeda subscribe ha hilmaamin muhiim waaye muuqaalkan iyo muuqaalo oo xiiso lehna insha allah waan soo gelin doonaa dhiirigelin wacan asxaabay